habeen wanaagsan saaxiibayaal maxay tahay sababta rasmiga ah ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo imaanayo magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka SSC Khaatumo warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sababta rasmiga ah ee uu imaanayo magaalada Laascaanood wararka qaar waxay sheegayaan in arrimo siyaasadeed uu imaanayo iyo sidii loo fulin lahaa doorashada qof iyo codka ah ee ay wado xukuumaddiisa iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii ay cagta ku dhifteen ama ay iska biyadiideen labada maamul ee Jubbaland iyo sidoo kale Puntland oo uu matalo aan dhahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wararkan waxa ay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha uu imaanayo magaalada Laascaanood in si rasmi ah loo aqoonsado maamulka SSC Khaatumo oo awal kumeel gaar ay ahayd maamulnimadiisu 2 sano ayay ku ekeen labadii sanana hadda gabagaba ayay ku egtahay sidoo kale waxaan idin hayaa qodob ku saabsan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo u socda magaalada Nairobi halkee buu ku dameeyay dagaalkii Daesh iyo sidoo kale Puntland maxay tahay balse sababta uu Saciid Deni hadda u tagayo Nairobi qodobadaas oo faahfaahsan daawada inta kula wadaagin wax ka codsanaya inay Turkiga ku soo birto subscribe lahado muuqaalkan like iyo saarto kamarelkana furto si ay ku soo garanin warbixinada maalinlaha halka ku soo gudbino maalmihii u dameeyay halkan waa ka maqnayn balse hadda si toos ayaa ugu soo noqonay oo wararkii u dameeyay Soomaaliya ayaan habeen walba halkan kula wadaagi doonaa adigana wax ka codsanaya inay ugu taageertid inay Turkiga ku soo birto sidoo kalena muuqaalada halkan ku soo gudbiyo like saarto hadii aan ku bilaabo warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya sababta rasmiga ah ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu imaanayo magaalada Laascaanood wararka qaar waxay sheegayaan in ra'iisul wasaare Xamse uu imaanayo magaalada Laascaanood in uu si rasmi ah ugu dhawaaqo aqoonsi la siiyo maamulka SSC Khaatumo maadaama markii hore la aqoonsaday muddo 2 sano ah ay ku meel gaar wixiisi ahayd haddana ay ka sii dhamaanayso ra'iisul wasaare Xamse markuu yimaado uu ku dhawaaqo in SSC Khaatumo ay tahay maamul rasmi ah oo ka tirsan maamulada ka jira dalka wararka qaar waxay sheegayaan in arrimo siyaasadeed oo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu imaanayo dabadana uu ka riixayo Xasan Sheekh Maxamuud wararkaas waxa weeye in maadaama ra'iisul wasaare Xamse uu waayay labadii maamul oo matali jiray oo kala ahaa Puntland iyo sidoo kale SSC Khaatumo aan dhahay iyo Jubbaland iyo Puntland uu waayay oo fursad halkan laga tuso ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu halka ku tago isla markaasna uu ku fuliyo doorashada qof iyo codka ah ay wadaaniin ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale Xasan Sheekh oo badana maamuladu ay diidan yihiin Puntland iyo Jubbalandna ay iyagu ka biyadiideen wararka qaar waxa ay sheegayaan in arrimahaas oo dhan aysan waxba ka jirin oo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu imaanayo maamulka SSC Khaatumo in uu matalo oo halkaasi aqoonsi rasmi ah uu ku siiyo maamulka SSC Khaatumo sidaasna kaga mid noqdo maamulada dalka ka jira hoos yimaada dawladda federaalka Soomaaliya waxa shalay magaalada Laascaanood soo gaaray wafdi aad u tiro badan waxaana kamid ahaa hay'adda diwaan galinaysa dadka Soomaaliyeed wada ay dhikaarka lagu aqoonsanayo qof walba oo Soomaaliyeed qofkii qaatana uu diyaar u noqonayo inuu ka qayb galo doorashada qof iyo codka wararkaas ayaa shaki gelinaya sababta rasmiga ah ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu imaanayo magaalada Laascaanood waxaana la leeyahay maadaama ay hay'addaasi ay timid arrimo siyaasadeed ayaa laga leeyahay sababta uu imaanayo SSC Khaatumo waxa la rabaa in lagu socodsiiyo doorashada qof iyo codka ah ay wadaaniin Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxayna wararku sheegayaan in si rasmi ah loo bilaabayo diiwaangelinta dadka SSC Khaatumo sidaasna ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ku buuxin doono kaalintiisa matalaad maadaama uu lumiyay SSC aan dhahay Puntland iyo sidoo kale Jubbaland uu lumiyay SSC Khaatumana ay ka mid noqonayso ama deegaanadeeda ay ka mid noqonayaan goobaha laga codeynayo doorashada qof iyo codka ah ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iyagu wada doorasho qof iyo cod ah aan wada ogol ahayn oo maamulada qaar diideen kuwa kalena ay ka biyadiisan yihiin wali balse aysan mowqifkooda cadin laakiin Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ayaa mowqifkooda iyagu cadeeyay oo waxba kama jiraan iyo inaan loo dhameyn ku tilmaamay doorashada qof iyo codka ah ay wadaaniin ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre
maalmaha khamiis sabtida iyo sidoo kale axadda ayaa la filayaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre inuu yimaado magaalada Laascaanood wixii warara oo ka soo kordha ra'iisul wasaaraha halkan ayaa daawada kula wadaagaya haddii aan u gudbo qodobka ku saabsan madaxweyne Deni oo tagaya magaalada Nairobi waxa warar soo baxaya ayaa sheegaya in maalmaha soo socda uu madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu tagayo magaalada Nairobi dalka Kenya waxaana wararku sheegayaan inuu halkaas kula kulmi doono qaar ka mid ah mucaaradka ay ka mid yihiin Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee dalka iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidoo kale mucaarad kale oo tiro badan waxayna ka wada hadli doonaan ayaa la yiri doorashada aan dhahe 2026 oo muddo aad u yar ay ka dhiman tahay dagaalkii Puntland isagoo xageebu ku dameeyay madaxweyne Deni haddii uu ka baxo dad badan waxay isweydiinayaan uu ka tago Nairobi aado maxaa xageebu ku dameyn doonaa dagaalkii Puntland kula jirtay kooxaha khawaarijta ah ee Daesh wali waa u socdaa waxaana kooxda Daesh hadda ku socda duqeymo saddexdii habeenba ay habeen fuliyaaniin dalalka ka taageera maamulka Puntland dhanka duqeynta cirka ah ee Imaaraadka iyo sidoo kale Mareykanka waxaana la filayaa in maalmaha soo socda dagaalkaas la soo gabagabeeyo wararku waxa ay sheegayaan in Daesh halkaas ku hartay ay gaarayso sida ay wararku sheegayaan in 150 ilaa iyo 200 oo qof ay halkaas gaarayaan waxaana Puntland inteeda badan laga soo qabanaya firxad aad u tiro badan oo ka tirsan kooxda Daesh kuwaas oo la sheegay in ay ka baxsadeen kadib kooxda Daesh kadib markii duqeymo aad u tiro badan halkaasi lagula beegsaday asbuuci la soo dhaafay 4 nin oo midba meel laga qabtay ayay Puntland soo bandhigtay waxayna sheegeen in ay u adkeysan waayeen duqeymaha ay wadaaniin saaxiibada beesha caalamka ka taageeraya dagaalka Puntland dhanka cirka ah madaxweyne Deni iyo sidoo kale Axmed Madoobe iyo sidoo kale Sheekh Shariif ayaa la filayaa in ay ka wada hadlaaniin sidii loo geli lahaa doorashada 2026 oo foodayna ku soo haysa waxaana la filayaa in shir weyn oo mucaaradka dhan ay ka qayb galayaan lagu qabto magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxaana waxyaabaha ugu waaweyn oo halkaas Nairobi laga wada hadli doono waxa kamid ah shirkaas iyo cid ka soo qayb gali lahayd iyo sidoo kale sidii loo abaabuli lahaa mucaarad dowladdan ku khasba inay qabato doorasho aan doorashadii awal madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud lagu soo doortay xilli uu isagu abaabulayo doorasho qof iyo cod ah isaga iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre wixii warara oo ka soo kordha arrimahaas ay la wadaagay daawade halkan ayaan kula wadaagaya waxaan ka codsanayaa in YouTube-ka ku soo birto adiguna subscribe dhahdo muuqaalka la iga saarto gambaleelkana furto aad baa u mahadsantahay